السلام عليكم. halkan waa Hanweyn Media hoyga cilmiga iyo teknoolajiyada. Haddii aad jeceshahay horumarkeena, fadlan channelkan subscribe inoo dheh, kuna xirnaa goor kasta oo noqo dhiirigeliyaheena koowaad. waad ku mahadsan tahay booqashadaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan wanaagsan daawadayaashana qiimaha iyo qaayaha mudan meel walba aad joogtaan. waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub. muuqaalkan insha Allah waxaan ku baran doonaa taariikh kooban oo ku saabsan aasaaskii YouTube iyo qaabkii ay gacanta u gashay Google. YouTube waxaa la aasaasay 14 Febraayo sanadka 2005 waxaana wada sameeyay Steve Chen, Chad Hurley iyo Jawed Karim oo dhammaantood ahaa shaqaale hore oo ka tirsan shirkadda ku ganacsata habka online-ka ah ee PayPal. ka hor inta uusan u shaqayn PayPal, Hurley waxa uu naqshadaynta ka bartay jaamacadda Indiana ee ku taala gobolka Pennsylvania ee dalka Mareykanka, halka Chen iyo Karim ay si wadajir ah kaga barteen computer science jaamacadda Illinois ee ku taala magaalada Urbana. xaruntii ugu horreysay ee YouTube ka howlgalay waxay ku taala dusha sare ee maqaayadda Pizzeria in Japan ee ku taala magaalada San Mateo oo ka tirsan California. muuqaalkii ugu horreeyay ee YouTube-ka laga daawado waxaa la soo geliyay oo la soo dhigay 23 Abriil sanadka 2005. aasaasaha YouTube-ka ee Jawed Karim ayaa soo dhigay muuqaalkan oo soconaya 18 ilbiriqsi, kaasoo ciwaan looga dhigay Me at the Zoo. wuxuuna tan iyo markaas la daawashada in ka badan 200 milyan ama views. sanadkii 2005 shirkadda Google oo baahi weyn u qabtay inay samaysato qayb iyada ka tirsan oo u gaara muuqaalada ayaa isku dayday inay samayso barnaamij muuqaalo ah oo ay ugu magac dartay Google Videos. laakiin Google way ku guuldareysatay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku gaartay YouTube, kaasoo ahaa dooqa koowaad ee daawadayaasha aadna loo jecel yahay. YouTube wuxuu ahaa mid ka mid ah shabakadaha ugu kobaca badan adduunka. maamulayaasheedu waxay lahaayeen faham cad oo ku saabsan waxa ay macaamiishoodu xiiseynayaan. Google ayaana isticmaashay mahmaahda dhahaysa if you can't beat them, buy them, oo macnaheedu yahay haddii aadan ka adkaan karin, iibso. sanadkii 2006 Google ayaa iibsatay YouTube iyadoo gacanta ka saartay saddexdii lahaa adduunan 1.65 bilyan, waxaana xilligaas YouTube ka shaqaynayay 65 shaqaale. la wareegada YouTube waxaa hormuud ka ahayd shaqaale hore ee Google ka tirsanayd Susan Wojcicki oo hadda ah maamulaha YouTube. ku dhawaaqista iibka ayaa la sameeyay Oktoobar 9 sanadkii 2006, wuxuuna dhammaaday 13 November isla sanadkaas 2006. waqtigaas qiimaha iibsigu wuxuu u muuqday mid aad u sarreeya, laakiin kobaca dhaqaalaha ka soo xarooday YouTube-ka ayaa ka dhigay heshiiskaasi inuu ahaa maalgashi ganacsi oo aad u wanaagsan. YouTube ayaa daha ka qaaday in dakhliga xayeysiisyada uu kor u dhaafay 15 bilyan sanadkii 2009, taasoo 9 jeer ka badan inta Google ay ku bixisay iibka YouTube-ka sanadkii 2005. maanta Google waa mashiinka ugu horreeya ee adduunka ee xogaha laga raadiyo, halka YouTube-na uu isaguna yahay mashiinka labaad ee ugu weyn xagga raadinta macluumaadyada. sida aad arki karto, iibsashada Google ee YouTube ayaa ka caawisay inay maamusho xog raadinta internetka adduunka oo dhan. sida laga soo xigtay YouTube, dad ka badan 2 bilyan ayaa bil walba soo booqda YouTube, waxayna daawadaan in ka badan 250 milyan oo saacadood maalin kasta. haddaba waa maxay sababaha Google ku kalifay inay iibsato shirkadda YouTube? caannimada YouTube, taasoo ah in YouTube-ku yahay bar dunida caanka ah, taasoo kor u sii qaadi karta awoodda caannimo ee shirkadda Google. dhisidda bulsho, maadaama YouTube ay ku xiran yihiin dadyow aad u tiro badan, taasi waxay Google ka saacidaysaa inay si fudud ku hesho goob ay ku kulmaan bulsho aad u baaxad weyn. isticmaalka iyo ku dhaganaanshaha, taasi oo ah shacbiyada ballaaran ee YouTube-ku leeyahay inay iyadu yeelato, maadaama ay tahay goob ay dadku aad u isticmaalaan, aadna ugu dhagan yihiin oo aanay marnaba ka daalin. xayeysiinta iyo lacagta waana hadafka ugu weyn ee Google u iibsatay YouTube, maadaama ay tahay il dhaqaale laga heli karo iyadoo loo marayo samaynta xayeysiin dakhli badan oo ka soo xaroodo.
fadlan haddaad ku cusubtahay kanaalka subscribe inoo saar, muuqaalkana like inoo dheh, waayo like-tu waxay nagu dhiirigelinaysaa dadaalkeenna, waxayna naga caawinaysaa in muuqaalku sii gaaro asxaab badan oo u baahi qabta kana faa'iidaysan doonta insha Allah. mahadsanid in ka badan milyuun jeer.